maalintii dhoweed laba waqti oo nimid khaasatan maalintii dhoweed magaaladu waxaan arkay aada u ballaaratay oo maxaan idhaahdaa aada u qurux badan marka farxad iyo waxaan dareemayaa iyo ilaahay nicmadii uuna siiyey marka alxamdulilah aan leeyahay marka insha allah. waa duuliye sare axmed dheere waxa uu ka mid ahaa duuliyayaashii diyaaradihii dagaalka ee dowladdii milatariga ahayd ee maxamed siyaad barre waxaana 1988 ay dowladdii milatariga ahayd ee maxamed siyaad barre ku amartay inuu duqeyme ka geysto magaalada hargeysa wakhtigaas oo uu socday dagaal u dhexeeyey ururkii SNM iyo dowladdii milatariga ahayd ee maxamed siyaad barre balse duuliye axmed dheere waxa uu ku dhaqaaqay tallaabo markaas ay adkayd in lagu dhaqaaqo waxaana uu fulin waayey amarkii dowladdii maxamed siyaad barre ay siisay isagoona ka goostay dowladdii uu wakhtigaasi duuliyaha u ahaa waxaana uu diyaaraddii uu watay ula goostay dalka Jabuuti. haddaba duuliye axmed dheere oo hargeysa ku sugan ayaa caawa xarunta dhaqanka ee magaalada hargeysa waxa uu kulan kula qaatay qaar ka mid a dhallinyarada magaalada hargeysa iyagoona dhallinyaradu ay su'aale ka weydiiyeen duuliyaha wakhtigaasi iyo sidii ay wax u dhaceen iyo weliba waxyaabaha ku kalifay inuu tallaabadaasi qaado. su-aasha haddaan ka horeeyo Amnesty International iyo Human Rights Watch waxay qirsan yihiin in Somaliland ka dhaceen gobolada Somaliland xasuuq ka dhacay adigu ma aaminsan tahay inuu ahaa dagaalkii gobolada waqooyi waqtigii 88kii lagu soo qaaday haddii aad aaminsan tahayna buugaaga iyo taariikhda dunida la wadaagayso ma ku qori doontaa? 100% xasuuq waay taasna waxa weeye aniga kaligay ma oga laakiin waxa in badan wadada ka warqaba taas diyaaradaha meesha garaacay waxaa ka tiro badnaa madaafiicda oo aan la yaabanaa oo habeenadii aniga habeenkan soo hoyday iyo habeenkii laba habeen seexday labadii habeen xataa habeenimada way socdeen madaafiicda marka waxaan garan waayaba meeshaan joogo runtii oo waxaan idhi wax sida la yeelay maxay tahay waa yani waa wax maskaxdayda ka weynaaday inkastoo aan la socdo raadiya balidogle markaan joogay in meesha dagaal ka jiro haddana ilaa heer karti inuu yahay marna uma malaynayn marka xasuuqaa jiray 100% oo run ah oo aan ahayn wax laga badbadiyey. markaa duqaynta socotay dareenkaagu sibuu ahaa marka iminka diyaaraduhu kula soo dul marayaan hargeysa iyo maalintaa dareenkaaga maxaa farqiya u dhexeeya dareenta? xaqiiqdii maalintii aan halka ka tegayo oo intaa garoonka 2 bomba ka qaaday aan halkaa kala baxayay Jabuuti oo magaalada xaaladeeda ogaa rajo badan ma qabin haddana qofka muslimka rajo kama dhammaato oo mar walba inuu rajo qabo weeyo oo ay laga baxayo wax kastoo dhibaato ah inna maca alcusri yusra mar walba waa aaminsanaa marka laakiin aad iyo aad wax tiiraaya iyo xube badan ayaa mataqaanaa niyadeyda ku jirtay oo lasoo koobi karin marna. waxaa jiray sidaad ka dhawaaqisay diyaarado hantara oo duqeynta ka mid ahaa berigaas statekii duqeynta hargeysa ku jiray diyaaradaha hantarka waxaa imaaraadka ku wareejiyey dowladdii Soomaaliya marka waxaad noo sheegtaa imaaraadku maanu dagaalka maanu ogeyn xagan ka socday xilligu ku wareejiyey diyaaradahana waqtigaana noo sheeg dhowr state baa la sheegay laakiin waqtiga ahayd toos noogu sheeg. waxaa u dhexeeyey imaaraadka markay diyaaradaha bixinayeen iyo dagaalkan waqtiguu bilaabanaya iskuma dhoweyn mudday waxay fadhiyeen saldhigga baydhabo ay muddo fadhiyeen in muddo ah dhowr sano ah haddii aanay ka badnayn 5 sano waa dhammeed haddaanay ka badnayn marka dagaalkan waqtigiisii iyo mudday u kala fogay marka ma filayo imaaraadka inay dagaalka dartiis diyaaradaha u siiyeen oo markaas ma filayaba xataa inay ay jireen jabhadaha markaa u shaqeynay dowladdii xilligaa talada haysay markii laydin keenay hargeysa ee laydin qabanay laydin kala tusay magaalada ma isweydiisay adigu ama ma weydiisay maamulkaa sarreeyey waa maxay sababta ugu weyn ee loo duqeynayo maxay toolay dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo maxay toodo shacaba nafteyda jawaab u weydiiyay taas waa sababta loo duqeynayo dadka shacabka iyo dadkii waa isweydiiyey jawaabna waa heli waayey iyo waxaan ogaaday marka cid kaloo la weydiin karana ma jira hadda xorriyadda idinka waxaan arkaa su-aashaas oo kale
maxaa loo duqeynaya haddaan idhaahdo marka waxaa weye tiira laga soo raarici lahaa marka isla markiiba marka waxaa weye sida xorriyaddaasu ma jirin waktiga. waxaan ku weydiinayaa su-aal markii aad Jabuuti adiga iyo diyaaradu aad tagteen dowladda Soomaaliya ma dalbatay in dib lagugu soo celiyo? waxaan maqlay in taliyaha ciidanka cirka iyo saraakiil la socota inay tageen intii aan sugayay oo aan joogay magaalada Tajuura guriga barasaabka oo martida halkaasaan ku sugayay muddo 6 maalmooda inta laga helayo waddan markaasi qaabila marka halkaasaan ku maqlay in taliyaha ciidanka cirka oo halkaa yimid iyo saraakiil la socota markaana kolleyba waa weydiisanayeen laakiin horey waxaa igu sii sheegay wasiirka arrimaha gudaha maalintii hore uu tagayay oo uu yidhi ninka haddayna kaa weydiiyaan waxaan leenahay ma hayno ninkaas ma hayno diyaaraddiina waata bastooladan wata markaana iyadana waa u dhiibo iyadana waa siinaynaa wata marka ninka ma haynaan leenahay marka horeba igu sheegay laakiin inay tageenaan maqlay taliyaha ciidanka cirka iyo saraakiil la socota. dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo isagu ka mid ahaa mas'uuliyiinta caawa goobtani ku sugnaa oo mikrofoonka lagu wareejiyay ayaa waxa uu ku dheeraaday waqtigaasi iyo wixii dhacay isagoona duuliye Axmed Dheere ku tilmaamay haliyey ku suntanaan doona taariikhda Somaliland. midda labaad waxa daystilayay ciidankii dowladdii kale ditaliska ahayd ee dalka haysatay iyo ciidankii SNMT soo galay ayaa dagaalamayay ciidankii dowladda Soomaaliya raggii maamulayay xukumayay saraakiisha ka wada tirsaneen bay wada ahaayeen may garan waayin aqoontoodii iyo waayo aragnimadoodii ciidankii la dagaalamayay SNMT meeshu ku jira may garan waayin si aanan anaku u garan waayin ciidamadii qaybtan Hargeysa joogay iyo qaybaha kala joogay meelihii ay joogeen unbuu ciidankii SNMT weerartay taasaa waxa ay ka dhigaysaa inaan ciidan lala dagaalamaynin shacab la xasuuqayay marka waxaan leenahay Axmed hawl badan buu qabtay haddaynu reer Somaliland nahay xasuus buu nagu leeyahay qadarina wuu nagu leeyahay inaynu xasuusanana waynu nagu leeyahay dhallinyaradiinu ina taariikhda barataanna way u baahan tahay dabadeed imika caawa halkan uu ayaantan idin joogaayo waa inaad sawir iskala wada qaadaano halkana waxaanaan la garanaynin ay idinkaga sawiran yihiin in aad qaadataan sawirada garamada Axmed aydun qaadataan ila taariikhda saasaa lagu fidiyaa. dhinaca kalena qaar ka mid ah dhalinyaradii ka soo qayb gashay kulankani ayaa waxa ay ka codsadeen wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed inay xukuumaddu sii deyso wiil lagu magacaabo Bilaal Bulshaawi oo muddo Hargeysa ugu xidhan koobka fayo oo ka samaysan astaanta calanka Soomaaliya oo uu Hargeysa ku dhaxabay wiilkaas oo adeer u yahay duuliye Axmed Dheere waxaana ay dhalinyaradaasi ku adkeeyeen wasiirka arrimaha gudaha Somaliland in caawa uu goobtaasi ka ballan qaado in wiilkaasi muddada Hargeysa ku xidhan ay xukuumaddu sii deyn doonto. soo jeedin baan caawa halkan uga halka fadhi Hargeysa waxaa ku xidhan inaan yar oo adeer u yahay Axmed Dheere oo hor fadhiya waxaa loogu xidhay inuu caday calanka Soomaaliya dhammaantii dhalinyaradu way ka warhayaan baan u malaynaya abaal noo gashay annagana badbaadisay nolosheeda badbaadisay yaro inamada yaryar halka fadhiya laaleeg inuu Hargeysa ku xidhan yahay muddo 2 bilood oo ugu xidhan yahay shaah kafee iyo badcabto calanka Soomaaliya leh waxaan madaxdeeda sharafta la kacsanayaa kaasiba waa adeerkii baa annagana badbaadiyay idinkuna maanta inaan ka yar hooyadii xamar ka soo ooyayso tiri agoon weeyaan ay soo ooyiday in fadliga Axmed Dheere ku sii deysaan waa iga codsi waanan mahadsantahay. wasiirkii arrimaha gudaha fadhiya inan yar oo dhalinyaro ah oo ka yimid koonfur khaasatan magaalada Xamar ayaa wadanka wuxuu ku xidhan yahay muddo badan hooyadiina in doora ayay soo ooyday waa hooyada aad maalinta badbaadisay unbaa annagana ma taqaanayay na dhashay
wasiirka waxaan ka codsanayaa oon jecelahay inuu halkan iiga jawaabo inaan kaayar ma kafaalo qaadaya inuu caawa sii daayo uu hooyadii mataqaanaa si xorriyada ugu tago intaas si commona weeyaan jawaabta wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ka hadlay codsigaasi ay u soo jeediyeen dhalinyaradaasi ayaa sheegay inuu aqbalay codsigaasi isla markaasina uu ka hawlgali doono arrinta wiilkani arrinkii inankii xidhnaa arrintiisii jaamacya baan ka wada xidhiidhaynaa taladana waan qaadanaynaa tallaabana waan ka qaadaynaa axmed oo aad iyo aad baanu kugu mahadnaqaynaa qarankan iyo ummaddan xasuus badan yeelanaysaa waanaad ku leedahay waxay kaaga xasuus badan yihiin qaar badan oo ka dhashay oo maalintaad go-aan kaa qaadanaysay aan go-aan kaa qaadan karaynin cabdijabbaar maxamed xuseen telefishinka Ariel Hargeysa